warar soo baxaya ayaa sheegaya in maanta magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ay ku wareejin doonaan 70 maxbuus oo kamid ah maxaabiistii lagu kala qabsaday dagaaladii ka dhacay gobolka Sool isla markaana dadku deegaanka ay kula dagaalameen maamulka Soomaaliland ayuu in muddo ka talinaya magaaladaasi xukuumadda intaas ku darayaan in maxaabiistani lagu wareejinayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynayso isweydaarsiga maxaabiista maamulada waqooyi bari Soomaaliya sidoo kale maamulka Soomaaliland ayagu maxaabiis fara badan iska haysta kadib dagaaladii adkaa ee ka dhacay gobolka Sool arintan ayaa timid kadib dadaal dheer ah oo ay galeen madaxda ugu sarreeyay dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo marar fara badan ka sheegay fagaarayaasha inay sabab u ahayn in dad Soomaaliyeed ay kala haystaan maxaabiis waxaana maalintii shalay ahayd uu khudbadii ka jeedinayay calaamasaarkii madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya Cabdulqaadir Firdhiye oo ka sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynayso sidii ay isku weedirsan lahaayeen isla markaana loo kala wareejin lahaa maxaabiista ay kala haystaan waqooyi bari Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland lama oga ilaa haatan in dhankeeda maamulka Soomaaliland ayaguna ay soo wareejin doonaan maxaabiista hase yeeshee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in lagu wareejin doono maxaabiistani in muddo ku xirnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool tan ayaa timid kadib markii madaxda maamulka waqooyi bari ay ku dhawaaqeen maalintii shalay ahayd in wax alla wixii dhexmaray ayagii Soomaaliland inay ka gudbaan diyaar u yihiin isla markaana aysan colaad wadin iyagoo ugu baaqay maamulka Soomaaliland in la wada hadashiyo isla markaana laga gudbo wixii dhexmaray waqooyi bari